maalintii loo qaadanayay muxuu ahaa imtixaankii raadi muqdisho waan imtixaankii baan ku jiray kii afraad baan noqday isaga iyo Saciid Cadaani Mooge iyo wali Xaaji Cali iyaa galay reserve baan anigu ahaa markii dambe militariga galay Ahmed waan bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh halkan isugu keenay inagoo nabada mahad labaad waxa leh Cali Xamed Jibriil gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliland oo runtii xafladana isagu soo abaabulay quruxda badan oo waxay ku quruxda badan tahay Soomaaliland dhaba meesha fadhida xisbiyadii salaadiintii ururadii muxuu ahaa iyaguna wasiiradii xukuumadda across board cid maqani ma jirto sidoo soo xulay baa itself wax qurux badan halka waxa ka muuqata in muxuu ahaa Professor Beyle loo dhayahay soo dhaweyntiisa oo Soomaaliland u dhan tahay hadday xisbiyan noqoto hadday urur noqoto hadday madax dhaqameed noqoto hadday aqoonyahan noqoto waan ku soo dhaweynaynaa sidii mar horeba la yiri dalkaaga ku soo dhawow Professor Ahmed baa sheegay wuxuu yiri wax badan baa la soo qabtay laakiin waxa la rabaa in la sustain gareeyo oo wali wax lagu daro dadka la doonayay inay wax ku daraan baa ragiina aqoonyahankii ka mid tihiin Ilaahay waxaan ka baryayaa imaatinkagu inuu noqdo mid khayr qaba joogitaankaaguna noqdo nin dalkiisii iyo dadkiisii uu maqnaa u yimi oo awalba waxtarkaagu ka maqnayn meesha oo dee iskuulka waaba wax loo dhiga lahayn muxuu ahaa gab oo aad lahayd muxuu ahaa asaaskiisa iyo fundingkiisa intaba waxaan leeyahay ku soo dhawow mar labaad inta halkan tirada marti sharaftaana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh واو اسبوعك في عايز صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa